ولا الهرتوا مع سنتاي سو أسلوبي سن أو وناكسن أو معان المهم سو وناكسن أو أسلوبي سبعة وهذا هرتا إلهي سبحانه وتعالى هو سوق الأمانة وأقول كده عدتك المياه مغلى محمد ما يوكاغو أنه cid kaloo ilaahay la wadaagto xukunka ma jirto nebiyaashu waa gaarsiiyayaal nebigu wuxuu leeyahay wa umirtu waxaa lay amray an atluwa alqur'aan inaan qur'aanka idinku dul akhriyo lama amrin inuu sharciga ilaahay sharci ka feer sameeyo midda kale walaalle adoon degdegin oo waxaad maqli jirtay keliya aan ku dhegin miyaadan xasuusan سليخة هوانتا اللي يراهدو او تاريخدو اي شيغيسو او نبي يوسف بي كو حد غدبت لليهي markii laga hadlay arinteeda qof ogaa ma jiro maxaa marxaati noqday u fiirso ilmihi yarka laga hadlay wuxuu yiri in kaana qamiisuhu qudda min dubr fakadabat wa huwa min as-sadiqin hadii shaatigu gadaal ka jeexan yahay haduu hore ka jeexan yahay asaga hor ah hadduu gadaal ka jeexan yahay asagaa cararaya ayadaa kufsanaysay horta shahiid waxa la yidhaahdo inuusan ahayn qof lugaynaya fiiri kamiiska jeexani calaamad u noqonaya waa qur'aan waxaa kuu keenaya walaal caawadan waxaa akhrinaya wallaati iyo walladaan iyo haddaysan qur'aan ahayn hadda aday kuu taallaa anugu waxaan qur'aan ahaynba ma daliishan ha tafsiirkana waa lagu kala duwanaan karaayo haddaa tafsiir nima dhintay haysato annagu tafsiirka tadabburka quraanka aan ka fahanay baan haysanaa dad dhintay marti uma nihin quraankan liyundira man kana hayyan way qofka nool buu u digaa ilaahayna wuxuu leeyahay liyadabbaru aayatihi aayadihiisa ku tadabbura nama oran ibnu taymiya tadabburkiisa qaata nama oran liyadabbaru aayatihi wa liyadhakkara ulul albaab annagay noo taallaa inaan quraan ku tadabburno oo aan fahanno oo macnihiisa aan qaadano dad dhintay marti ugama nihin daa adugu marti uga tahay kuu ceebeen maayo dadka ميت مرتضى واه الدون كما كو بدين انه مرتي امنين قران الهي وكتاب عد او مبين قرانا عربيا لقوم يعلمون وي قران كنا واه يسنا اف عربينا وا نقانا قوم يعلمون وانا وحبا كلا غرانينا منهين دد مارتي وحبا كلا غرانين وحبا ديدي النبي با ديدي قران با ديدي سانا تاي من قران ما يعني عربكيغا ولالكي با تاي ني وناكسن با تاي ني دداليا تاي wuxuu maqli jiray ku dhagan baa tahay laakiin waxa ku fiican inaad waxaad maqli jirtay waxa kugu cusub inta dhageysatid baaritaan u laabatid wax soo baartid ilaahay wuxuu leeyahay walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana qofkii dartuwi darteen u dadaala oo wadadeena ku dadaala wadadaan tusaynaa qofku hadduu juhdi sameeyo ijtihaad sameeyo tadabbur sameeyo wax baaro wuu gaaraya axaadiista qur'aanka ka hor imaanaysa إن أي تهي وح أنسل إيران لهينا أي حديث أو يعارض القرآن أو قرآن كهر إيمانية أو حكم عن قرآن شيغي أو وحى إلهي شيغي صوته نبي محمد ما هاي نين وحو ربع دية وحو لتبين للناس معاكم حاجة ما نزل وحسود دغيبو عديني حديث والبو عن آيات عدينين أو كليجيس لغينية أو لو حبا دلح لقد بها ودغخان قرانka ma lagu sheegay maya xadiis walbo dhagax ku saabsan waa been shayga quraanka ku jira oo ilaahay sheegay baa nabigu faahfaahin ka bixin karaa oo ummadda u sharxi karaa hortooda ku tukan karaa shaygu buu tusi karaa laakiin wax aan quraanka ba ku jirin nabigu kuma soo dari karo laakiin dad baa ku been abuurtay oo munaafiqiin leh oo mujrimiin leh oo wadaaciin leh baa nabiga waxay rabaan ka qoray waxaan kaloo la yaabanahay waxaa tiri bukhaari xadiiska ku jira waa qiso jaahili oo bukhaari asaxu lkitaabi bacda kitaab illaahi baan ku ogeynin ma sheekooyin jaahiliya ku yaalla waaba su-aal yaab la wey bukhaari inta hadda meesha ku jirta ha faa'iidaysato bukhaari haddaa u malaynayseen inuu yahay kitaabka labaad oo qur-aanka ku xiga wadaadku hadda wuxuu caddeeyey inay ku yaallaan sheekooyin nebiga intaan la soo dirin waxyaalo dhacay amow raalli aho waa ku xoognay حق بعض الله هيدنا هذا شو واكو حقن رال دولار نص أنا خصم من فضلك ولادك دولار نص عطو أنا قصد ما ولاد أنا ولاد ما هي ما قاعد الله ولاد ما هي هذا ولادي خير الله كسي هذا عمارة قبيل ولا الله نين كان حق بقول لي إنه هالله
aniga adigu meesha maxamed baa noo furo nagu marti qaaday aniga adiguna meesha ma lihin ninkaa walaalkeena hadduu hadal qabo waxaa laga yaabaa waxa aan sheegayno wax ka fiican inuu sheego wadaadadu dadkay afduubaan annagu wadaadama nihin dad kale ma afduubo sheekhu dhamaysa adiga meegaaga ha noo sheegin qaabka anagu isu maamulayna adoo mahadsan maxamedow marka meesha waxaa taalla su-aasha adaa i weydiiyey waxaa tidhi arrinta caawa meesha lagu haya see kula muuqataa waxaan ka hadlay saddexdii noocoo zinada midda uu walaalkay leeyahay midda ku saabsan faruurta iyo jandarka waa laga yaabaa sida anugu aan isugu qiyaasay iyo walaalkay isu u arko inay kala duwan tahay laakiin marnaba qaab qallafsan uma oran waxaanu idhi dadku anigu dee ninkaa inuu aqoon badan yahay baa dhici kadhaa anigu waxaa arki jiray soomaaliya cabdifaruur iyo jaamac faruur iyo faadumo faruuray baa arki jiray maxamedow waayahan dambana faruurtii iyo cudurka dabaysha xataa adduunka waa laga dabargooyey maaqaana og tahay fayruskii booliyada waxaa loo helay tallaal adduunka waa laga dabargooyey aqoontu way kordhaysaa sidaa daraaddeed hadalkaygu wuxuu ahaa sida qofkaa faruurta loogu hagaajiyey meeqo qof baa soomaaliya nala joogi jirtay intaan qalliimadan iyo waxaan imaan wadaadku waxaan u maynayaa yurub buu midhaa ka yimid inta anugu afrika dhex wareeragay amuu yurub iyo meelaha ku noolaa oo dadka faruurta loo talo uu soo arkay anugu ma arki jirin anugu waxaa arki jiray maxamedow waa inaad isaxdaa oo haddaan qaldanaha ay qabataa waxaa arki jiray dadkii nala noolaa xamar oo dad fara badan oo faruuran oo qof tolah iyo qof hagaajiyay midna aan haysanin laakiin waayadan dambe aqoontii baa waxay gaadhay heer dadkii la tolo qofkii yani waxa weeye waxyaalo fara badan qaliimo lagu sameeyo keliyaha loo kala bedelo aqoontii baa korortay hadalkaygu marka waxa weeye haddii ay sidaa tahay meeshii qur'aanku uu ka lahaa ghayri ulil irbati min alrijaal alla uu lahaa waxaan abuuray rag aan dumarka hawaysan raggaa nin ka mid ah hadduu yidhaahdo war aniga waa ii jeedaan saanaan ku dhashay intii maalin walba lay cayrsan lahaa meesha dareenkaygu yahay oo dhadigaa dhakhtar baa qalliin igu samaynaya dhadig baan u guuraya caqli diin diidaysaa ma jirto qofkuna waxaa la rabaa in la kala duwanaado ceeb ma aha meeshuu googaalaysi ma aha waa la kala duwanaan karaa qofku aragti buu qaadan karaa qof kalena waa ka duwanaan karaa annagu waxaan diidanahay nin raba inuu dad diin u sheego oo leh culumaa waxay tiri ibnu taymiya wuxuu yidhi dadka haddaad diin u sheegayso alla warkiisa u sheeg nabi maxamed markuu mucaad diray muxuu ku yidhi dadka diinta u sheeg maxaad u sheegaysaa kitaabka ilaahay haddii shaygaas uusan kitaabka ku jirinna wixii adiga nabi maxamed oo aan kaa maqlay oo dardaarankaagii dhaqankaaga haye haddaa ka weydana wixii ijtihaadkayga wuxuu darajaad bay leeyihiin marka qofka muslimka waxaa la rabaa inuusan xad gudbin inuusan colaad iyo maaragtay nacayb uusan la soo boodinin xoogaa marka walaala colaadda iska yaree midda kale waxaan jeclaan lahaa maadaama maxamedow aan marti kuu nahay inaanaan dadka meesha ku jira la odhan laba nin baa afduubtay ama wadaad iyo nin baa afduubay anu wadaad maahiye aan la odhane ayagana aragtidooda iyo say u arkaan meeshu aysan googaalaysi naga noqon wadaadkaasi waa caddaystay عليو ضد كلماتيس حقها هلا أيوة نقطة waaba soo wadaaba waa midaan codsanayaba waxaan codsanayaa aniga iyo walaaliga aan googaalaysanay maxamed qolka walaalaha kale anigu ma bilaabana nin baa su-aal weydiiyey su-aashina maxamed baa uga jawaabay inaan adiga kuusii jawaabo xataa maysan ahayn maxamed baa ixtiraamaya maahe inaan kuu jawaabo xataa maysan ahayn ka bax marka waa yahay adoo mahadsan haddaa dhammaysatay waa ka baxayaa laakiin ma rabo inaan meesha aniga adoo ina adeer marka ama ka bax ama meega dhamayso adoo mahadsan كمال أصنع هذا كمال adoo mahadsan maadaama qodob diiniya laga hadlaayo maadaama wax badan la soo darxiyay waa xaqan u leeyahay qofka mukhaalifka ugu horeeyo jooga waa aniga inaan u jawaabo su'aalihi aan weydiiyay wuxuu iiga jawaaba aan sheego wixii kale oo hareer maray ama uu bedelay ama uu si kale ugu ciyaarayna inaan saxo kadib markaas haddii dadku wada sheekaysanayaan yaa la sheekaysanin anigu malihi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam awalan waxaa ka sheekaysay qur-aanka
wax aan ku jirin oo fikirkaaga ah haddana mar labaad ku soo dartay waxaad ka sheekaysay waxaad tiri Sulayqa calaamadii qamiiska lagu kala jeexay calaamadaad ka sheekaysay waxaad tiri Sulayqa aayadda quraanka ama Sulayqa ay ku leedahay Sulayqa xagaa ka keentay Sulayqa ma sheegin aayadda quraanka boqorka xaaskiisi imra'atul azizi alayri boqorkii reer Masar xaaskiisi laakiin quraanku ma magacaabin Sulayqana ma sheegin waa ka sii dartay oo waa dhaantaysay waxaa tiri cunug yar laga dhawaajiyay oo sheegay oo yiri oo dadkii kala bixiyay cunug yar macaqli wax ku kala bixiyay leeyahay aayadda dhaaday cunug yar wax kala bixiyayna xagee ku taala quraanka hal cunug yar hadlayana loogu sheegay waa nabi Allah Isa alayhi salaam قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا أوكي آيات مرك وحاكو صدرتي عنو يرى هالله وفكرك كو قران بايبلك وحنك حما هنا تسكو قلدي بايبلك يا قرانك لبدaba aan waa isku aqaana marka taas ilaahay maadiisa mana isku qaldaayo teeda kale tan boqorka xaaskiisa cunug yarba maba aysan lahayn cunug boqorka cunug hooyadiisa haduu ku marxaati kacay ilaahay wuxuu dhihi lahaa cunug hooyadiisa ku marxaati kacay laakiin ilaahay wuxuu leeyahay washahida shahidun min ahliha waxa ku marxaati kacay fiiri ala aayadan oo adigu aad keensatay laba arin ay burineen marka koobaad waxay burineen marxaatiga inuu qof yahay oo san calaamad ahayn adiga mar labaad aad ku soo celisay waxa tiri waa calaamad kelmadda shaahid waa calaamada tiri aayadan waxay sheegay qof bani aadama aayado badanna waa ku soo daliishaday isla midaan aad soo daliishatay haddana waxaan ka dhex fahmaynaa wa shahida waxa ku marqaati kacay shaahidun min marqaati kacay ma ahan yaa calaamad sidii aad tiri oo min ahliha imra'atul aziz ehelkeeda kamid ah okay marka hadii la yiraahdo cunug yar oo ahaa sida adigu hadda ka dhawaajisay aayada quraanka ma aysan dhihin reer Masar ilmaha yar ka miyaa ku marqaati kici jiray xagaa ka keentay cunug yar marqaati kacay masateeda kale ta boqorka xaaskiisa cunug yar war oo yiri laga xukumahay kula ta xagee warkaas ka keentay mase cunuga maxkamadda fadhiyay oo kala xukumay taasna aragti aad ku soo darsatay walaalkay waana ka xumahay inaad quraanka ilaahay wax aan ku jirin aad ku darsato bible-ka xataa lama ogola inaad wax ku darsato oo bible-ka wuxuu ku leeyahay kitaabka Yuxana waxnaha ku dirin waxnaha ka dhimin قرآن كريم كان إلهي وحوليه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد باطل هرنا وجماع ما كره قدالنا وجماع ما كره أنا جانا حفظ السنة بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وآيات عد وأن كحفظ الني لا تقوى عن علم السنة دوما ذا كميت كوري الله سبحانه وتعالى هل كاسمرك وحاكم بربري عنق يراء أكشة كيس القرآن كم جرا سلاقة أكشة كيسنا آيات مشي جيسو علامات مركا وصلاته نبي يوسف وحاتري عليه السلام والله حكم حاسكي لما حكمين هذا قد صوم سوق هذا قميص كإن لا حكمي حاسكي لما حكمين حبس لجوم حكمين توجش لجوم حكمين جناح لجوم حكمين سببت اللي حكمي وامحي قميص جحنا ما شيال كل ورك الشيء يسي أيا بطل الله قد جاي آيات ده أفر علامات مركا أركتان وحكومة أيان كاربا waxaan ka xumahay su'aalihii ugu horeeyay ee aan ku weydiiyay inaadan hal mid iiga jawaabin kaliya midaana soo qaaday markii aan rabay inaan ku cusboonaysiyo waxa tir waxa dhan waa wada maqlay aayad bas aad ka hadashay su'aalihii way banaayeen aan ku weydiiyay hadal kasta oo aad tir waxaan ku yiri aayad quraana isi oo sidaas dhahayso waxba ima aadan siinin mana aadan iiga jawaabin waayahay aan ka gudbo qodobada ka hadashay way ka sii banaayeen Allahul musta'an waxa tiri diinta marti ugama nihin dad dhintay iyo culimo ilaa hadda aniga iyo adiga ay doodeena bilaabatay adiga ayaa waxa soo daliishatay 10 culimo magacyadooda sheegay waxaad sheegtay ibn Taymiya waxaad sheegtay Bukhari aniga hal marna afkayga lagama maqlin ibn Taymiya hal marna lagama maqlin Bukhari hal marna lagama maqlin xataa Sheekh Maxamed oo Abdullah Arif iyo Sheekh Abu Bakar Xasan Maalin ama Sheekh Umar culimadii xataa afkayga kama aana sheegin marka wixii adigu aad ku sifaysnayd inaad aniga igu dhaliisho waa ceeb adiga culimadaas qalbigaaga ay ka buuxaan adiga ku fakaraayo adiga ku dagaalamayo hal marna anigu Bukhari ma sheegin ibn Taymiyana ma sheegin imaam kalena ma sheegin laakiin arintii adiga aad ka dhex guuxaysay ayaad aniga igu dhaliilay waana arin la yaab leh oo ceeb ah waxa tiri mayd marti uma nihin maxaa ka wadaa waxa ka wadaa
أنا فسرت وحاتر إلهي وحنيري قرآن كتدبرا وارن إلهي وحنليه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها إلهي وحنليه ما ويس القرآن كتدبرين الله سبحانه وتعالى وحونا أمرين إن القرآن كتدبرنه لكن آيات دهيسو قرآن كبين كصدر در حقيقة تعالى كتدبره ما واحد كفسرتي إن أركت له صدر إلا أن أركت هذا كصدرتي أركت هذا محاول صدر تمرك كلنا وحاتري إلهي وحير كتدبره أنا وحن كلها وارون إلهي وحير كتدبره لكن إلهي حقه كلها وحكو صدر در سلاقة كصدر عنو جيرا كصدر حقه إلهي كلها تدبر كمعنيه ثم واحد كلنا نقطي إن وحلو صدر مايا إلهي وحود دليشنها أوليه والقرآن كما سفي عنه فهمتان ولو كان من عند غير الله مالا الله كأين دوك إمالها لوجدوا وحيهل لها فيه في القرآن اختلافا إسكار إمال كثيرا أو فربضا إن إنسان أرنتاس جرنسو الله أصغو أيوحون ليه قرآن كسفي عنه تدبرا لكن الله مدين سلاقة يعنو غير مرخاتيا كصدرا واجب كاغا تاسنا وتفسيركي وأصو دليشتي بوس أن بوسكي سأهين وهي أنك قدبو ku dheeraan maayo sidaad ma aragtaan ugu dheeraatay sababta qodobadii aad tiriya mid u dul istaaga ilaa hadda aan waxba dooda sooma aan bandhigin waayahay aadan uga xukumahay ina quraanka kariimka aha wuxuusan ahayn oo aan ku qornayn aad adigu ku bedesho markii lagu yiraahdo maxaa u bedeshayna aad tira ilaahay ayaa amray markii lagu yiraahdo ilaahay xaq uu kugu amrayna aad tiraahdo ilaahay wuxuu yiri afala yatadabbaruna alqur'ana ilaahay ma ku dhahayo afala tahrifuna alqur'ana qur'aanka ma tahrifisin ilaahay kuma dhihin waxa ku soo celcelisay oo in badan ka dhawaajisay ambiyada ilaahay waana qodobka jecesha in laga la hadlo anigana waxa ugu dhalishay tiri waxa laga yaabaa inay kugu cusub yihiin hal dhaga wax ka maqle ustaad waxaan ku leeyahay waxaad ku harowsataan caamada iyo dadkan diinta ilaahay si fiican u aqoonin hal dhaga waxba kama maqlo islamic religion waa bartay christian religion waa bartay firq wal adyan kana si fiican u kala aqaan alxamdulillah وانا كل حتى دبوري مد كستنا واباري مد آن هستين يقول صحن تاينا حقيقة جاري واي هل بيوحى وحكم مقلو قفك هل فكر لو برا جرامي انت فريسو قرآن كان كبرى بس ملك لها آذن كاسا وحالة لها وقفك هل بنع وحكا دقيستي بادرياشان دقيستا وان لدودا ملحدين تان لدودا نكرانيين تأديق أساس كأوتاي كميتايان لدودا ما أهن هل قفو مال اسكفر دي مئي مال والبان فرتق قليا يهودية حتى وحان كأقانا ومركا تاس وإنا كوشا قف ميل كحر حيران مئي أديقا أركتها إغاما صورتاي واي وايهي وعاكالو تري وآد أغسو العليسي أنبياء إلهي حكم لما سينين أنبياء إلهي أيغو حكم مدجي كران وحيكو قصبي حكم كي جيب كوداها إني دجيان إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكو الشيغا في سورة المائدة آيات إلهي وحكو الشيغا مركي لدلو ugaar ma la ogola in la ugaarto xaramka intuu qofka xarman yahay ilaahay wuxuu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala diinu laba qodoba ay dhiman oo hadaladiisa la radinayo wali hadal xataa inaan ku daro mar rabo ilaahay wuxuu leeyahay ha xukumaan dawa adl minkum laba qof oo cadaalad u saaxiiba oo idinka mid ah yahkumu bihi dawa adl minkum ha xukumaan laba cadaalad u saaxiib ah oo idinka mid ah maxay xukumayaan وواح لوغا قياس قاطي نيفكي لدلي فيريا كو halkaas waxa ku buray arinta ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dad xukun sii karo way badan tahay quraankana in badan ay ku soo aroortay reer bani Israa'iil waxyaabo Ilaahay ugu mana sheegto waxa waaye Ilaahay wuxuu leeyahay waxa Ilaahay idin siiyay wal hukma hukun inay isku xukumaan fiiriya mar tawraadkooda isku xukumaan mar injiilka isku xukumaan okay nabiga kale Ilaahay xukun siiyay وحكمنا النبي الله داود وسليمان عليه السلام حقاك كنتي إلهي قفنا حكم مصيكرة كلية كتابك وسودجي أيا الله حكمه إلهي نبي الله داود حكم وسيي سليمان حكم كلوسيي هداي ترى هذا مركا نبي داود زبور الوسودجي أو وحكو حكمه إيه هداي وكا أقولنا كديدي ما لكن وحن كهربا سليمان كتابك الوسودجي أو حكم كداود أو كو خلافي أو ولي أصلا أو كو صحصنادي كتاب كاسم عيسى أرنت أكنت مركب ماشي أكو حرتي آتري نبي ذا وحبا ما حكومي كران قتك كبلحه سبط إلهي سبحانه وتعالى وحر وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم
إلهي مدين وكنا لحكمنا مدين يا أيها لو إضافي وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما إلهي سبحانه وتعالى وحكشة كينا قصة وقرآن كنا وقد حشاكينا إلهي وحويري أن داود يا سليمان حسن نبي محمد ومضى وقشة كي حلي أي كلا حكومها ين بير تعرنتي بير أو قولوا لا دهي أيا واحد داقي حوله أو قولوا كلا أي لا دهي لبدو دوا لبن نبي يسقط الشيء حدنا بير تاسي كلا حكومنا أيان ما حكوا كلا حكومنا أيان إلهي حكم أو سيا يكون كلا حكومنا أيان وياهي داود زبور وهيستي لكن سليمان زبور ما أوسن هيستني بل وحو خلافي حكم كأبيهز نبي داود عليه السلام قابوا حكميه قابك وحكميه قابا حين أيو نبي الله سليمان عليه السلام وحكميه إن كستودن آمن سنين لكن وشرحها قابك كلا أهين نبي الله داود وحويري بيرتان ملا عنيها نكي بيرتان لقى عني حقات حوله عنان كي بيرت حولها عنينا أسمونا بيرت حقات أساسا لقو كلا وريقو نبي سليمان وحوير ميا رعفاني كقاتل نبي سليمان اللوتني ما يوري سلاس معهم ها بيرتا أنا مركز القصة قاب كان أو فسرايو ما كلها يا سيد هذا القرآن كي كجرتا ما كلها يوفهم كيجا ما كلها يا قصة وقصة أرورت يا حديث الأيام كوجش شيئا وياه وحوير النبي الله سليمان عليه السلام نكان حولها بيرتا عني حسيها يستو كنا بيرتها أبورو كاسم حولها قصي رقمه بيرتا مركي يسوق جرت حكي لقى عني أو كله نك حولها لها حوليس اللوسو عليو كي بيرتا لها بيرتي ساقاته يو خلافي نبي الله داود إلهي وحوليه ففهمناها سليمان وحن فهم سيني سليمان وكلا آتينا متكستو النبي سليمان إيا داود كمدنا وحن سيني حكما سيني هل كاسمرك وحا كبر برتي الرير أو أتصور لسطة أو أهي نبيادو وحبا ما حكمي كران نبيادو حكمك دينت إلهي كليا وحا إيسو دريشتي آيات سو دريشتي أرنك لو مهم وربعين عن كالنا ويقهو سبحان الله هذا لكن انت هذا الكوضاء أهم صوحة سوستوى أركي دونا وحاتري لتبين للناس النبي وحالوير لتبين للناس ما نزل إليهم أنا أديك ما أسكو قلاف سن النبي إنه نوع عدينا وحي لغسو دجيه ما يسكن قلاف سنين لكن أديك النبي وحي لغسو دجيه قيب كميدها داقة كتورتي وحي النبي لغسو دجيه قيب كميدها داقة كتورت هل قيبات قادة وحاتري وقرآنك بس النبي لغو سو دجيه أنا وانا waxaan ku leeyahay nabiga quraanka kaliya lagu soo dajin hadii quraanka bas lagu soo dajiyo ilaahay wuxuu dheelaa quraanka lagu soo dajina dadka u caday laakiin ilaahay wuxuu ma nuzila ilayhim wax ka badan oo sheegay Allah subhanahu wa ta'ala arinta harba marka inaan ka hadlo waxa tiri buqaari walaalayaal oo fiiriya buqaari waxa ku jirta qiso oo jaahilnimo ka sheekaynayso maxaa loo dhahay waa kitaabada ilaahay ugu ansaxsan walaale kitaabka hadii looga sheekeeyo qof casri jaahili wixii uu ku sugnaa وحي أو كسبنا هدي لوجا شيء كتابك مية عيب كتاهي مثل قفك عصر الجاهلي قدولا وحس مية عيب كتاهي هذا ترى كتابك عيب كتاهي قرآن كاد عينوسا سبتها قرآن كحوك شيكينا ضد جاهلين أو أصنام عابد جيران كتالي قرآن كحوك شيكينا ضد نوعية كلا دوان وحوك شيكينا ضد نبيادو دي دلان وحوك شيكينا ضد إياو إس عابد جيران مركا قرآن كما وحان لنا ولا ليالو فيرشا قرآن ضد جاهلين أو كشاكينا وسيدو كتابك إلهي كنا قكرا مايا كتابك وحا أو كشاكينا يو هذه قصص سجن أي تاي قصة داسنا أي تاي قصة تصيني سقف جهل كدعي قصة دي سكشكي كتابك عيبك معهن وحي عيبك تهاي قفكي عصر جاهلي كشاكي لكن هذا أرنتاس كتابك كل عيبيسو كتابك أوه الرياض عيبين يسوحو نقنا كتابك القرآن الكريم كأه ويا أرنتا أوصل الله تمرك لتبين للناس ما نزل إليهم أدو حالة النبي وحال جسود الجي القرآن كريه وحن كاربا ما أنت وحكي صور شيء توقول راحة هل آيات أو رحيصو ولا لو إيك هذه هل آيات أو رحيصو النبي محمد وحن جسود الجني قرآن كريه ولا لي الوحن هل كان كوجوجنا بقول صدن يا أفر روح مركي أنا أسجن على جرها يابو وحن كوجوجنا بقول صدن يا الله بالروح waxaan idinka rabaa inuu isiyo aayada hayso nabi maxamed waxaan kugu soo dajinay quraanka kaliya sheekh Kamaalo waa walaale maya ada wadanayo